xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa kalsoonidii kala laabtay madaxweynaha maamulkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed warkani waxay noo faahfaahinaya wariyaheena Shucayb Axmed Cabdulle iyadoo maalmihii ugu dambeeyay la hadalhayay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug ay wadaan mooshin ka dhanaa madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ay maanta kulan ay ku yeesheen degmada Cadaado oo xarun ku meel gaar ah maamulka Galmudug isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka ee baarlamaanka Galmudug Xalad Cali Xareed waxay halkaas codkii kalsoonida kala laabteen madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed kulanka markuu soo dhamaaday kadib ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka ee baarlamaanka Galmudug Xalad Cali Xareed waxaana uu Xalad Cali Xareed uu sheegay in inta laga dooranayo madaxweynaha cusub uu xilka uu sii hayn doono madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabey waxaa inuu soo guulaanadmay doodii madaxweynaha oo codkii kalsooni kala noqoshada madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed doodaasoo ay ku soo dhamaatay si jawi degan oo aan lahayn isqaqabsi iyo buuq fadhigiisii afraad kulankiisii afraad xildhibaanada maanta halkaan fadhisayna tiradooda guntanka wuxuu ahaa 54 qof waxaana u codeeyay mooshinka kalsooni kala noqoshada madaxweynaha 54 qof wax ka aamusay iyo wax diiday intaba ma jiraan sida la socotaan kalfadhiyada soo socdo ayaan ku magacaabi doonaa guddi doorasho oo heer madaxweyne ah intaas wixii ka sokaysana insha Allah taala howlaheedii kale ayaan u sii gudagalaynaa oo sii wadanaynaa waxaana kusima sii noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug mudane Maxamed Cabdi Xaashi ayaa sii ahaan doona ilaa aan ka soo dooranayna madaxweyne kale waxaana farayaa madaxweyne ku-xigeenka inuu gudoomo xilkaas ilaa aan ka soo dooranayna madaxweyne kale xilka qaadistii maanta ay ku sameeyeen xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Galmudug madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa warar qaar waxay sheegayaan in uu raali ka yahay xilka qaadista lagu sameeyay madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed Shucayb Axmed Cabdulle waa Bari TV Muqdisho wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa waxa xilka loogu qaaday gudoomiyaha degmada Beledweyne Macalin Cusmaan Qalaafow iyo waliba sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka degmada Beledweyne iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusuble isla markaana xilka loogu qaado xubnahan ka tirsan maamulka degmada Beledweyne iyo sidoo kale maamulka degmada Matabaan ayaa waxa warbaahinta u aqriyay mas'uul ka tirsan maamulka degmada Beledweyne bismillahir rahmaanir rahiim waxaan halkaan ku soo gudbinayaa mas'uuliyiin cusub oo loo magacaabay degmada Beledweyne kuwaas oo kala ah gudoomiyaha degmada Beledweyne waxa uu madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle u magacaabay Maxamed Axmed Ibraahim oo lagu leeyahay Food Cabdi sidaa darteed waxa kale oo la magacaabay gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee degmada Beledweyne waxa loo magacaabay Mudane Qadar Xasan Afrax waxa kale oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle oo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan kaasoo loo magacaabay Ducaale Aadan Cabdi Garaaso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhinaca kale gudoomiyaha degmada Beledweyne Macalin Cusmaan Qalaafow
ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xilka qaadista lagu sameeyay isla markaana uu la shaqeyn doono gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay degmada Beledweyne aad ma santiin warkaas war aad u fiican way aan hadda ilaa waqtiga ma hayo dekreeta ka soo baxday madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Shuble Siyaad laakiin waxaan ka maqlay hawada in maamulkii la bedelay ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Beledweyne aadan u faraxsanahay in warqad ay soo gaarto wada shaqeyn shacab iyo wada shaqeyn maamul iyo in ay dadka reer Hiiraan reer Beledweyne waqti warqad soo gaarto uu baaqo doono in la shaqeeyo gudoomiyaha cusub ayaan mari doonaa hadii reer halka dhigo markii soo gaartay warqadaas Cabdishakuur Maxamed Xasan waa Bari TV Beledweyne